xaqiiqooyin aanu ninku ka ogeyn jirkiisa ku soo dhawaada asxaabay muuqaal cusub waxaanu daqiiqadaha soo socday la wadaagi doonaa xogo ka dahsoon iyo xaqiiqooyin cilmiyeysan oo ku saabsan jirka ragga ee si daawo muuqaalka ma ogtahay in jirka ninku laba jeer ka dhidid badan yahay jirka gabadha ma ogtahay in 6 bilood ay raggu cimrigooda ku qaataan gadhxeerid saaridda uu ninku saaro dhabtiisa laptop kulul ama isagoo diirimaada isagoo waliba isticmaalaya waqti dheer waxay sheegayaan daraasado badan oo la sameeyay in ragga arrinkaasi ku keeno madhaliisnimo halka sigaar cabidda badanna jirka ragga ku sababo inay ka yaraato raganimadu cagaha raggu waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay xidha kab cilib dheer ama kabaha dhaadheer waxaanay ahayd goortii ugu horreeyay xidhaan sanadkii 1600 ujeedada ay u xidheenna waxay ahayd inay ku kala bixiyaan murqaha cagta waxay heleen cilmi baadhayaal ka socday jaamacadda Chicago markii ay baadhitaano ku sameeyeen jirka ragga in candhuufta ninku isku bedesho dhareer gaar ahaan markuu la hadlayo gabadh qurux badan sida daraadeedna ay jirkiisa saayid ku noqonayso maadada testosterone waxa lagu sheegay tirakoobyo badan oo la sameeyay in heerka ragga dhibaatooda markay xaaskoodu ka geeriyoodaan ay yihiin 63% ka mid ah ragga halka gabadhu ku noolaato nolol heer sare ah markuu ninkeedu ka geeriyoodo waxaana farxadda ka raadisaa awlaad ay dhashay iyo cid kastoo ka agagaar dhow waxay cilmi baadhistu cadeynaysaa in hilibka badan ee ragga fuula ay si xun u saameynayso xiriirka qoyska iyadoo u saameynaysa 3 dariiqo koowaadna tahay in xubinta saamaynta saddexaad ee ay qoyska ku yeelanaysaana waa markastoo ay burnaanta ninku badato ay tahay markastoo ay ka siyaarato hormoonka raganimadu waxa ku nool waddanka Shiinaha ku dhawaad 40 milyan oo nin oo iskaabula ah tirakoobyaduna way ka sii badanayaan inta sanadba sanadka ku xiga markii la darsay kadib waxa la ogaaday in ragga guursada dumarka quruxda badan ay ka firfircooni badan yihiin kuwa kale iyagoo noloshooda guur ku dareema xasilooni iyo farxad saa'ida in ka badan marka la barbar dhigo kuwa kale aan guursan gabdhaha quruxda badan waayeel daadiisu ahayd 99 sano waxa uu furay xaaskiisa oo iyaduna jirtay 96 sano kadib markay soo wada noolaayeen 77 sanadood waxaana ku furay markay u sheegtay inay wax ka qarisay waxaasina uu ahaa inay warqad jacayl ka heshay nin la jaar ahaa 3 meelood marka loo qaybiyay ragga Talyaaniga ah ee u dhaxeeyay da'da 30 ilaa 35 waxay joogaan oo ku nool yihiin guriga waalidkood waxa uu ninku socodkiisa gaabiyaa 7% marka uu la socdo xaaskiisa ama qof uu jecel yahay halkuu isku dayo inuu socodkiisa laban laabo marka uu la socdo nin kale ma ogtahay in ninka aan timaha xabadka ku lahayn uu ka awood iyo tamar badan yahay ninka timaha ku leh xabadka maskaxda ninku way ka miisaan weyn tahay maskaxda gabadha laakiin culimada sayniska ugu horeeyaan Einstein iyo Anatole France waxay meel mariyeen inaanay isku xirnayn miisaanka maskaxda iyo awoodaha caqli tusaale ahaan haddii ninka maskaxdiisu ka yar culays badan tahay maskaxda gabadha taas macnaheedu ma aha inuu ninku gabadha ka caqli badan yahay ku dhawaad 22% gabdhuhu markay seexdaan waa kuwa khuro weyn halka 48% ragga ka mid ah ay la dhibaatoodaan khuro badan markay seexdaan gabadhu way ka dhaxan dareemid ogtahay ninka halka jirka ninkuna aanu xamili kareyn kulayl lamida intay gabadhu xamili karto wajiga ninku waa mid dhalinyaro sii ahaan kara cimrigiisa inta badan halka wajiga gabadhu ka gabow dhow yahay ka ninka oo goor horeba ay ka soo muuqan karaan calaamadaha gabowgu sababtuna waa inuu ninku lumiyo proteinka collagen in ka badan gabadha inta lagu qiyaasay 25% jirka ninku uu ka adeeg badan yahay jirka gabadha sababtuna waa inay ragga ku badan yihiin hormoonaha testosterone-ku cilmi baadhis la sameeyay waxa lagu ogaaday inay raggu dumarka eegaan sanad ka mid ah cimrigooda sanadkaasina waa markii la isu wada geeyay intuu ninku gabadha eegayay cimrigiisa oo dhan kala bar dumarka caalamka u dhintay dambiyada dilka waxa qayb ka mid ah dilay ragga qaba ama kuwa ay xidhiidhka la leeyihiin ma ogtahay in markastoo ay dhashaan 107 nin ay 200 oo gabdhood dhashaan ma ogtahay in gabadhu markay maalintii 6 jeer been sheegto oo ninku hal been sheego haddaad ka heshay muuqaalkan nagala baqaylin like haddaad ku cusub tahay channelkana ku soo dhawow oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada dambe soo geliyo